dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay roketkii ay hawada u tuurtay in kontaroolka uu ka baxay. duniduna ilbiiqsi walba gantaal ayaa ku soo dhici kara, halka uu gantaalka uu ku soo dhici doonana aqoon-yahanadu way isku khilaafsan yihiin. gantaalkani Shiinaha ee kontaroolka ka baxay idaacadaha adduunka waa mid si aad ah u hadalhayaan. inta badan rokeedyada halka laga tuuro iyo halka hadafka uu yahay inta aanan shaqadani la bilaabin ka hor, aqoon-yahanadu way xisaabiyaan. badanaana marka hawada sare roket loo tuurayo waxaa hoosta ka caawiya oo lala tuuraa gantaal oo ku beegan maalinta Sabtida ee soo socoto in dhulka uu ku soo dhici doono. Pentagon waxa ay sidoo kale sheegtay in si taxaddar leh roketka halka uu ku soo dhici doono in ay la socon doonaan. inta uusan soo dhicin saacado ka hor ayaa si dhab ah loo xisaabin karaa goobta uu ku soo dhici doono. dabcan meel ay dad degan yihiin haddii ay noqoto waxaa suuragal ah saacado ka hor in dadkaa loo sheego. qof welibase hadda meel ayuu qiyaasaya in gantaalkani uu ku soo dhici doono. dadka qaar caasimadda Spain Madrid ayaa suurtagal ah inuu ku soo dhaco. waxaa laga yaabaa ayaa qaarkood ay leeyihiin New York inuu ku soo dhaco. qaar ayaa sidoo kale waxa ay leeyihiin cirafyada adduunka ayaa laga yaabaa in gantaalkani uu ku soo dhaco. ixtimaalaadka ku aadan halka uu ku soo dhici doono marka la isku soo duuduuba dhammaantoodii loona barbardhiga dhulka in 90% biyo inuu yahay halka ugu macquulsan ee uu ku soo dhici karo waa badda. dadku sema ay oga sababta gantaalkani kontaroolka uga baxay. xaqiiqdii Shiinuhu si ula kac ah miyuu kontaroolka uga saaray? waxa ay ka mid tahay su'aalaha dadka dhexdoodii ay aadka isku weydiinayaan. qaybtani gantaalka ee kontaroolka ka baxday Maraykanka wuxuu u bixiyay 2021 eber 35B waxaana suuragal ah gantaalkani iyada oo la isticmaalaya tiknoolajiyada casriga halka uu ku sugan yahay hareeraha dunida in ilbiiqsi walba hadda in aan daawano. haddii websayte-ka Orbit ING aan galna kadibna magaca gantaalkani loo bixiyay aan ku qorno waxaa inoo soo baxaya sida inoo muuqata roketkani halka uu ku sugan yahay. roketkani adduunka oo dhan ayuu ku soo wareegsanayaa, xitaa dhowr jeer ayuu Soomaaliya korkeedii uu soo maray. qaaradda Afrika ayuuna waqti xaadinkani socdaa. saacadiina waxa uu ku socdaa xawaaro dhan 27,600 oo kiiloomitir. halka uu gantaalku ku sugan yahay iyo halka uu ku soo dhici doono si live ah ayaa halkani looga daawan karaa. tanina ma aha markii ugu horeysay ee gantaal hawada loo diray kontaroolka uu ka baxo. sanadkii tagay bishii May sidani oo kale ayuu mar kale roketka kontaroolka uu ka baxay. waxa uuna ku dhacay xeebaha Lovia qaaradda Afrika, Burkina Faso iyo agagaarkaasi. nasiib wanaag dhisme qadiimi ah oo aanan lagu noolayn oo keliya ayaa burburay. haddii gantaalkani dhulka uu ku soo dhacana gaar ahaan goobaha dadku ay degan yihiin sida madaafiic oo kale, dabcan khasaaro burbur naf iyo maalba isugu jira ayaa ka dhalan karaa. dadka qaarse gantaalkani waxay u malayaan sidii dhagaxa beenta ahaa ee sanadkii tegay 29 Abriil ee dadka oo dhan aadkay uga baqanayeen. dhagaxaasi baraha bulshada mooye aqoon-yahanada iyo dowladuhu kama aysan hadlin, laakiin roketkani qaybtiisii hoose ee kontaroolka ka baxday dadka oo dhan ayaa hadalhaya. ugu badnaan 10 bisha ka hor ayaana la filanayaa in dhulka uu ku soo dhaco. waxa ayse u badan tahay aniguse xitaa aan qiyaasaya in badda uu ku dhici doono, sababtoo ah dhulka aynu ku noolnahay ayaa 90% waxa uu yahay mid bad ah. 10 aynu dhulka ka degannahayna in badan oo ka mid ah waa meelo lama degaan oo duur ah. sidaasi darteeda laga yaabay in badda uu ku dhaco ama meelo lama degaana. arrimaha noocani oo kale ah ee gantaalka fakaday ama virus sheebaan ka soo baxay waa mawduucyo dadka ku xeeldheer aragtiyooyinka shirqoolka ay aadka u jecel yihiin. waxaa dhici karta ayay qabaan dadkaasi in si kas ah waxyaabahani loo sameeyey si dadka loola qabadsiiyo mustaqbalka dagaalka inagu soo wajahan ee UFO. dad badan ayaa aaminsan in sanadaha soo socdo bani'aadamka waxyaabaha UFO loo yaqaan in weeraro ay ku soo qaadi doonaan. si horudhac ay ugu noqoto waa in bilowgii gantaal ama dhagxaan dadka dhulka ay ugu soo daataan.